السلام عليكم أصحابي كسو دوادا muuqaal cusub muuqaalkan qaybtiisii koobaad waxaad ka daawan kartaan description-ka ama fiidiyowga hoostiisa jin shayaadiin iyo malaa'ig in alla iyo intii suuragala waxay dad badan isku dayaan inay si khiyaali ah u suureystaan qisooyinka cajiibka ah iyo makhluuqaadka la yaabka leh ee Allah ku sheegay kitaabka Quraanka Kariimka ah haddaba si aan khiyaali ahayn waxaan maanta muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa tijaabooyin aan ku soo ururinay makhluuqaad la yaab leh oo lagu xusay kitaabka Quraanka ah iyo diimaha loo yaqaan Ibraahimiyada kadib markaan daraasad badan sameynay waxa isku dayay noqday mid cajiib ah oo ku soo ogaanay makhluuqaad la yaab leh oo diimaha lagu sheegay iyo Quraanka ee si aad uga bogtid si daawo muuqaalka gullim haddii kelmadda Ingiriisiga ah ee xaqiiq u bedelno afka Cibriga waxa inoo soo baxay kelmaddan la yaab kale kelmaddan inoo soo baxdayna waa mid ay Yuhuuddu ka aaminsan yihiin in haddii la sameeyo dhoobo qaabka bini'aadanka oo kala ah kadibna kelmaddan inoo soo baxday dhoobada la sameeyay dusha lagaga qoro ay dhoobadaasi noqonayso qof soconayo oo nafi ku jirto isagoo waliba adoon u noqon doono qofkii dhoobada ka sameeyay aynu mawduuca u soo dhawaano waxaanu raadinaynaa qisada Yuhuudda Baraag waa Yuhuuddii ku noolayd caasimadda Baraag ee Jamhuuriyadda Liichi waxaana yahaayeen Baraaggu kuwa la takooro oo gaar la isaga saaro dhanka kalena iyagoo ahaa kuwa dagaal badan kani waa qabuurihii lagu aasay markay dhinteen waxaana ku yaala qabri qaab la yaab leh u samaysan oo Yuhuudduna uga kala timaado daafaha caalamka si ay u soo booqdaan waxaana ku jira qabriga nin inta badan ku sawiran meelaha ay ku cibaadaystaan Yuhuuddu ninka ku aasan qabrigan waa Judaah Law bin Salala waa qorweyntii ugu waaweynaa culimadii Yuhuudda wuxuu ku caanbaxay siday sheegaan xikmadda iyo cilmiga falsafada haddana sidaa ugama haybadaystaan Yuhuuddu laakiin sababta Yuhuuddu ninkan uga haybadaystaan waa qisada uu leeyahay Golim waxaana sheegaan Yuhuuddu in dihaad oo ah Yuhuuddii hore deganeed caasimadda waddanka Lijiig in markii la dabar gooyay kadib uu ninka lagu magacaabo Judaah Law bin Salala isu geeyay dhoobo kadibna uu ka sameeyay makhluuqa Yuhuuddu sheegtay Golim waqti xaadirkaana waxuu Golim noqday waxshi Yuhuudda daafac u noqda kana difaaca cid kastoo cadow la ah ilaa heer uu gaaray inay u dirtaan hawlaha nolol maalmeedkooda laakiin xilligaasi la maanta Golim waxa laga heli karaa caalamka meel kasta waxaana ugu dhawaa flaanta kartoonka ee Yuhuuddu ku jahwareerisay carruurta muslimiinta waxaana ka mid ah flaanta kartoonka ee ku jiro Simpsons iyo Master Rancher waxaana sidoo kale laga arki karaa shawaaricda wadamo badan oo caalamka ku yaala isagoo loo sameeyay qaab taalo oo kale iyo sawirro ku dhajisan darbiga waxaana sidoo kale lagu dhajiyay buugaagta meelaha Yuhuuddu ka cuntayso iyo xitaa wax laga sameeyay sanamyo yaryar oo laga gado dalxiisayaasha Yuhuudda ah waxaana laga sameeyay qaar badan asnaamtana waa kuwa aan nuqul gaar ah u lahayn cidna waxaana si badheer ah oo cad looga iibiyaa carruurta aan Yuhuudda ahayn ee caalamka ku nool si ay u qaataan iyagoo moodaya wax madadaalo ah waxa kale oo lagu soo bandhigi jiray aflaantii qadiimiga ahayd ee hore iyo kuwan imka la daawadaba badanaana qofka Yuhuudiga ah ee doonaya inuu wax badan ka ogaado Golim waxa uu tagaa madxaf ku yaala Baraag ama madxafka kale ee isla Yuhuuddu leedahay ku yaala Berlin kaas oo waxshigaasi yaallo iyada loo sameeyay qaab anthropomorphic ama kartoon ah la raaciyeen tafaasiil badan Karobim waxa Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay suuradda Qaafir aayadda 7 Bismillaahir Rahmaanir Rahiim alladheena yaxmiluuna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yu'minuuna bih suuradda xaaqana waxa Allah ku sheegay ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 kuwa carshiga alla siday quraanku sheegaya waa malaa'ig haddana Yuhuudda iyo Kristaanku waxay isku waafaqsan yihiin in waxa carshiga Ilaahay sida yahay Karobib balse waxay isku khilaafsan yihiin sida uu eeg yahay waxaasi Yuhuudduna waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay makhluuq xajm weyn balal waaweyn leh halka Kristaanku rumaysan yihiin inuu Karobim yahay wiilka yar ee halkan ku dhajisan badanaana carruurtu ku daawadaan aflaanta kartoonka ah waxaanaad ka arki kartaa sawiradiisa isagoo ku yaala qubuuraha dadka Kristaanka iyo kaniisadahoogaba isagoo kala qaab duwan kala midab duwan haddaad ka heshay muuqaalkan nagala baqaylin like haddaad ku cusub tahay channelkana ku soo dhawow oo subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada dambe soo galino